ميبوا هستي دقمة إذالة هريدي أبوان كوين أحمد معلم أبوان سرك كيريفتي الأستاذ عبد القادر حسين وبونس مستكودة الأستاذ محمد حاجي عدكن ميبوا الفنان بدين لمدار مع سوماليا waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah tuulooyinka gobolka Bay degmadan deegaanka Idale waxa uu ka mid yahay deegaanka ugu ballaaran ee hoostaga gobolka Bay bartamaha koonfur galbeed Soomaaliya deegaankan Idale waxa uu si gaar ah u hoostaga degmooyinka uu gobolka Bay ka kooban yahay waxaana isugu jiraan Idale iyo gobolka Bay qiyaastii 60 kiiloomitir sidoo kalena deegaanka Idale waxa uu leeyahay dhul beereed la magac baxay oo flow bulshada ku dhaqan Idale iyo tuulooyinka hoostaga waxa ay noloshoodu ku xiran tahay 70% beeraha iyo xoolaha nool waxa ka soo jeeda dad badan oo caan ah sida waxgarad aqoon-yahano siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan sida ay dad badan ay sheegeen deegaanka Idale waxa la aasaasay sanadii 1920kii waana deegaanka ugu ballaaran isla markaana aad ugu weyn shanta degmo ee gobolka Bay ka kooban yahay degmada Dinsor Bardale Qasax Dheere Burhakabo iyo taariikhda dheer ay deegaanka Idale leedahay kasoo wali dawladihii dalka soo maray uma aqoonsan in ay tahay degmo buuxdo sababtoo ah dawladihii dalka soo maray ilaa xorriyadii degmadu ay cadaalad darro ka tirsanaysay iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankaasi oo iyaguna aan dheelin doorkii dadka ay deegaanka ay ka sugayeen deegaanka Idale waxa hoos yimaada deegaano badan ama tuulooyin waxaana ka mid ah Barbare dhagro la Raamacade Roobey Mado iyo Xagar iyo tuulooyin kale ganacsiga deegaanka Idale waxa sanadka ka dambeeya si kordhaya tirada ganacsatada ee deegaanku waxa uu leeyahay suuq weyn oo loo iibgeeyo xoolaha lagu magacaabo suuqa xoolaha weyn ee Idale waxa uu sidoo kale jira suuqa kale oo ka mid yihiin suuqa caanaha suuqa digaaga ama suuqa badarka deegaanka Idale waxa aad ugu soo badanaya hoteelada sida gaarka loo leeyahay kaasoo dadka martida iyo safarada iskaga kala goosha deegaanka iyo magaalooyinka ku xiran ay ku caawiyaan kuwaasoo ay ka muuqato in ay leeyihiin aqabkii nolosha qofka safarka uu suurtagelinaya in uu helo nasiino iyo raaxo ku filan deegaanka sidoo kale waxa uu leeyahay ama ka shaqeeya isgaarsiinta Hormuud iyo Telecom iyo waliba shirkadda Samtel oo dadka badankooda ay u riyaaqaan ganacsatada deegaanka Idale waxa ay ka ganacsadaan ama ka soo rartaan alaabka dadka deegaanka u baahan yihiin caasimadda waddanka ee Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha iyagoo iibinaya jumlad iyo tafaariiq xilli ay aad u mashquul badan yihiin dadka deegaanka Idale maxaa yeelay deegaanku waxa uu yimaadaa tiro badan oo gadisle ah kuwaasoo doonaya in ay iibsadaan dalagyada ka soo gaca degmada Oflo ama Idale sidoo kalena deegaanku waxa uu la keenayaa xoolo nolol oo fara badan isla markaana hantaasi laga keeno tuulooyinka hoos yimaada deegaanka ee Idale dad badan ama shirkado dhoofiya xoolaha nool ayaa iibsada sidoo kale deegaanka Idale ma lahan dugsi hoose iyo dhexe oo toos ah iyadoo ay bulshada aad ugu xumaan qabto in ay u helaan ubadkooda iskuul boqolaal caruur ah ayna helin waxbarasho iskuul nidaami ah marka laga reebo marmarka qaar oo ay furaan macallimiintii hore waxbarashada dadka waaweyn ama waxbarashada dad badan National Formal Education kuwaasoo waagii hore tababaro ama agab waxbarasho ah ay siin jirtay hay'adda UNICEF oo xafiiskeedu uu yahay magaalada Baydhabo hase yeeshee sanadahan dambe gaabis ah sababo ammaan awgeed haddaba bulshada ku dhaqan deegaanka Idale iyo deegaanada ku dhow waxay aad ugu baahan yihiin in loo dhiso dugsi hoose iyo waliba iskuulo taasina waxa kaalin ka qaadan kara bulshada deegaanka qurba joogta iyo dhammaan bulshada gobolka Bay iyadoo ay jirto in caafimaadku yahay midka ugu muhiimada weyn iyadoo caafimaadku yahay shay qaali ah oo u baahan yahay la ilaaliyo isla markaana taasina meesha aan laga marmin fayadorka deegaanka bulsho kasta in ay hesho arintaasi ayaa waxa aan jirin ama aan lahayn deegaanka Idale xitaa meel lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka
waxaa deegaankani ka maqan waxaa aas-aasi u ah ilaalinta caafimaadka dadka iyo weliba xoolaha noolnool waxaa xushitaan mudan inuu deegaanku leeyahay farmasi u gaar ah loo leeyahay farmashi si gaar ah loo leeyahay bulshadana ka caabiya gargaarka degdega ah halka warkaasi aad kala socoteen waa Idaale salkahay degmada